labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee juun goor barqa ah oo saacaddu ay tahay 11:10 barkii subaxnimo waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka soo degtay diyaarad siday hub ay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ka soo iibiyeen dalka Djibouti sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helnay hay'ado iyo ilo lagu kalsoon yahay. hubkan waxaa siday diyaarad si gaara loo soo kireystay oo ka timid dalka Djibouti waxaana la sheegay in loo leexiyay qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay maamulaan ciidamada la dagaalanka argagixisada Soomaaliya ee Alpha Group. waxaa la sheegay in hubkaasi laga dejiyay diyaaradda muddo yar kadibna garoonka ay ka qaadeen baabuur ay leedahay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. hubkan ayaa intiisa badan ka kooban qoryaha AK-47 oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayaan 300 oo qori iyo bastoolado iyaguna gaadhaya 300 rasaas iyo qalab kale oo military. warar xogogaal ah oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen in hubkan laga soo iibiyey Djibouti qaab suuq madow ah waxaana la ii sheegay in soo iibinta hubkan uu hawsheeda qaabilsanaa taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Saadiq Cumar oo ku magac dheer Saadiq John. hubkan waxaa la ii sheegay in loogu talagalay ciidamada lagu magacaabo ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1500 oo askari kuwaas oo la ii sheegay in maamulkoodu inta badan uu gacanta ugu jiro taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Saadiq John. dawladda Soomaaliya waxaa loo ogol yahay inay soo iibsato hubka noocan ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii Maarso ee sanadkii 2013 qayb ahaan qaaday cunaqabatayntii saarneyd Soomaaliya waxaana tallaabadaasi dawladda ay u ogolaanaysay inay soo iibsato hubka fudud. hase yeeshee xayiraadda qayb ahaan la qaaday waxaa ku xirneyd shuruud oo ah in dawladda Soomaaliya iyo ciddii kale gacan siinaysaba ay ku wargeliyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan 5 maalmood ka hor inta aan la keenin hubka. waxaa laga doonayaa oo kale inay golaha ammaanka u gudbiyaan faahfaahinta hubkaasi, tiradiisa, meesha la geeyey iyo dejintiisa. ilo xogogaal ah oo la socda nooca cunaqabataynta saaran Soomaaliya waxay ii sheegeen in dawladda Soomaaliya ee tan Djibouti midkoodna aanay ku wargelin golaha ammaanka ee qaramada midoobay hubkan soo degay 22 bishii Juun. arrintaasina waxaan wax ka weydiiyey Matt Bryden oo ah agaasimaha hay'adda cilmi baarista Sahan Research horeyna madax uga soo noqday guddiga cunaqabataynta Soomaaliya ee Eritrea ee qaramada midoobay. They need only to notify the UN Security Council, I believe 5 days in advance. So there is no restriction as long as those do not include the kinds of heavy weapons, anti-aircraft, anti-tank weapons that are waxa uu yidhi waxay u baahan yihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku wargeliyaan 5 maalmood ka hor. ma jirta ayuu yidhi xayiraad saaran hubkaasi yaryar haddii aysan ku jirin hubka culus sida lidka diyaaradaha iyo lidka taangiyada oo mamnuuc ah sida uu dhigayo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaase waajibka adag ee la socdaa uu yahay ayuu yidhi in dawladdu ay ku wargeliso qaramada midoobay ciidanka helaya hubkaasi sida loo kaydinayo iyo sida loo maamulayo, goobta lagu isticmaalayo, ayna warbixin joogto ah ka bixiso 6 biloodba hal mar. sida ay sheegeen saraakiil xogogaal ah caqabad kale oo ka timid hubkan ayaa ah qaabka looga bixiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo goobta lagu xareeyey. saraakiil ka gaabsaday in magacooda la sheego waxay ii sheegeen in aan lala socodsiinin saraakiisha ugu sarreeya laamaha amniga ee dawladda iyo in hubka laga bixiyey garoonka kadibna la geeyey kayd aan hayn kuwii hore loogu yaqaanay dawladda Soomaaliya. caqabad kale oo ka soo baxday hubkan ayaa ah qaabka soo iibinta. waxaa warar lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen in hubkan asal ahaan uusan ahayn mid ay lahayd dawladda Djibouti oo ka soo baxay kaydka ciidamada ee dawladdaasi. waxaa wararka xogaalka ay ii sheegeen in hubkan goor hore lagu qabtay badda cas ayna qabteen ciidamada xeebaha ee Djibouti waxaana la aaminsan yahay inuu u socday mucaaradka Xuutiyiinta ee dalka Yemen. hubkaasi waxaa kadib la wareegay laamaha amniga ee Djibouti. wararka qaar ayaa ku doodaya inuusan hubkani ahayn mid sharciyeysan oo weli go'aan ay maxkamadi ka gaadhay. waxaa isweydiin u baahan dokumenti noocee ah ayaa haddaba dawladda Soomaaliya ay ku soo iibsatay hubkan. Matt Bryden waa agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Sahan Research. That is possible. It can be legal. The question is one of due process. International law is somewhat ambiguous on what happens to waxa uu yidhi waa suurtagal oo sharci ayuu noqon karaa laakiin su'aashu waxay tahay mid ku saabsan raacista sharciga. sharciga caalamiga ah ayuu yidhi si cad uma qeexayo hantida sharci darrada ah ee lagu qabto biyaha caalamka sida hubka iyo daroogada. laakiin mabda'a asaasiga ayaa ah in haddii agab sharci darraha lagu qabto badda in waddanka qabtaa uu go'aan ka gaadho sida loo isticmaalayo iyadoo la sii marayo maxkamadaha waddankaasi. maxkamadaha waddankaasi ayaana go'aan ka gaadhi kara cidda iska leh in la celinayo iyo in loo wareejinayo ama laga iibinayo waddan kale. su'aashu waxay tahay ayuu yidhi haddii ay Djibouti hubkan qabatay inay sharciga u martay oo ay soo marisay maxkamadaheeda iyo waxa sharciga Djibouti uu ka qabo arrintan.
waxa kale oo warar dhinaca amniga ah ay sheegeen inuu socdo baadhitaan ku saabsan in dadka uu ku socdo hubkan markii laga qabanayo badda cas ay ahaayeen kuwo ay saaran tahay cunaqabataynta dhinaca hubka ee qaramada midoobay oo ku sugan dalka Yemen. haddaba waxaan arrinta hubkan kala xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti, wasaaradda amniga ee Soomaaliya, xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhammaantood ay suura gali weydeen inaan ku qanciyo inay ka hadlaan arrintan. waxa kale oo aan la xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya, Cabdulcasiis Cali Ibraahim Xildhibaan, oo sidoo kalena ah la taliyaha wasaaradda amniga. waxa uu ii sheegay inay dawladdu baadhayso arrintan isla markaana warcad ay ka soo saari doonto.